ku horeeyo dadka dhibaatada ku dhacday dad muslimiina baynu nahay dad walaalaha baynu nahay dadka dhib weyn baa ku dhacay 60 qof baa la hayaa inta dhimatay wali tira koob rasmiyana lama hayo dad buuraha ku go'doonsan baa jira beerahoodii way waayeen hantidoodiina way waayeen ninkii wax tari karaya ha taro ka waxba tari kareyna ha u duceeyo ka aan u ducaynayna carabkaaga ha ka nabad galaan baan leenahay taas waa taa qodobka xagga khilaafka waa waxa uu noocyuu leeyahay mid diiniya jira mid siyaasiya jira mid qabaliya jira way noocyo badan yihiin khilaafaadka bulshooyinka ama dalalka dhexmara khilaafkan maanta Soomaaliland iyo Puntland u dhaxeeya waa mid siyaasi ah dawlad baynu dooranay shacabku dawlad buu doortay dawladda waa inaan uga dambayno ragga ka soo horeeya dawladda ee afayeenka isaga dhigayeen afayeen u noqdaan doonaya war dawladdu afayeen bay leedahay dawladduna kaalinteedii ha qaadato ha ka dambeeyaan oo dhammaanteena ka dambayno dawladda baan leenahay taasina waa taa arrinka la leeyahay la doonaya in qabiil loo rogo ganacsato badan baa jirta oo reer Soomaaliland oo Puntland ka shaqeysata dahabshiil baa kamida tuulo wal ama tuulo kasta oo ku taala waxa weeyaan Puntland xafiis buu ku leeyahay waxa jira dad reer Puntland oo xawaalada kule Soomaaliland baa jira hudheelo waaweyn oo imika Hargeysa laga dhisaa jira sidaasi waa sidaynu rabno marka ganacsiga iyo waxbarashada iyaan la siyaasadeynin dadku ha kala xoogsadaan arrinka Camuud hadaanu imaad Camuud munashibiya ma hadee dawladda hoose oo kaadhka dhalashada lagu bixiyo maaha waa iska soo horjeedaan jaamacadda iyo munashibiyada dadka loo abtiriyaa in magaalada uu ku dhashay baa la eegaa lama siiyo kaadhka dhalashada dadka kale ee aan magaalada u dhalan waxbarashadana gaal iyo muslim cidii buuxinaysa shuruudaha jaamacaddu ay leedahay way u furan tahay Soomaali marka laga tago marka waxaan leenahay dadka ragga ku galgalanaya ee jaamacadaha yaan la siyaasadeyn jaamacadaha yaan la siyaasadeyn baan leenahay dhibtuna halkay taalayaan laga sii turkin baan leenahay mucaawinada la siinaya dadkaas waxay u baahan yihiin in aad loo caawiyo ayay u baahan yihiin dib aan weligeed wadanka Soomaaliya ama geeska Afrika aan ka dhicin ayaa ka dhacday Somaliland iska doodayo Soomaalidii weyneedba waxaan qabsaday geeska Afrika waxaan ka dhicin baa qabsaday kolka wixii taageero ah ee la siinayo waxa fiican inaan la siyaasadeyn oo aan la gelin siyaasad aan la gelin ayaa wanaagsan dar ilaahayna loo bixiyo fiican maalmahan waxa ku arkay media iyo laga sheekaynayo 1 milyan wax alla waxay dadka ka qabanaysaa u taraysaa haba yaraatee ma jirto haba saahatee $10 hadii aad siisana kullay waxba u qaban laakiin lacag ay daba socoto sadaqad ay daba socoto mani qiimo doonaynaba to an mani daba socoto hadal daba socoto tashwiis daba socoto la siyaasadeynayo oo waxa ka soo gaadhayna had garanayso waxaan u maleynayaa taasi inay tashwiih gelinayso laakiin ninkii dar ilaahay wax u bixinayo waxay dadkaasi u baahan yihiin in la caawiyo dhulkooda oo dhan ayaa asfala saafiliin laga dhigo dhinaca kale loo raacay oo bacaadkii ugu hooseeyay baa sare loo soo qaado xagga sare la keenay xaggii sare xagga hoose la geeyay wax ka dhacood arki karo qiyaasi kartaa ma aha nin siyaaso xafiis fadhiya wuxuu qiyaasi karaa ma aha ama koonfur ha joogo ama galbeed ha joogo ama meeshuu doonaba jooge indhihiisa ninka soo arka mooyaan waa tii uu qiriyay madaxweyne Muuse Biixi Cimrigu soo raagay waa kii qiriyay waa kii sheegay halkay ka bilaabanto duufaanku halku ka bilaabmay iyo halku ku dhacay waa kii sheegay inkastoo qaar kale ka maqlaynay inay duufaanadu ku dhaceen wadankooda koone ilaa koone laakiin duufaanada iyo roobabka inay kala garanayeen duufaanadu waa tani asfalu saafiliin ka dhigtay dhulkii oo dhan bedeshay weeyii ka kalena waa roobabkii badnaayay ay boorama ka mid tahay weeyaan kolka taasi waa taa waa qodobkii aan ka sheekeynayay ee ahaa dadka in la caawiyo iyo milyan ka sheekada badan soo gashay qodobka kale jaamacadda Camuud hadii aan kaaga sheekeeyo horta jaamacadda yada Camuud waa jaamacadii ugu horeysay jaamacadaha la furay faraha badan ee imika wadanka ka jira shuruudo lagu soo galay leedahay shuruudahaasi lagu soo galay jaamacadda Camuud kama mid aha qabiil kama mid aha reer hebel oo inoo haada kama mid aha
region hebel gobol hebel waynu ka yimaadaa kama mid aha shuruudo ardayda lagu aqbalaa jira jaamacadda Camuudna waxa kale geeska Afrika ardayda ka soo baxdo oo dhan baa gasha Djibouti kolka laga bilaabay Jigjiga la mariyo ee Gaarisa la mariyo Nairobi laga soo rogo ee Ethiopia la soo mariyo waxa ee halka Boorama laga bilaabay Gabiley la mariyo Hargeysa lahad mariso eed mariso Burco eed mariso gobollo farado badan way dhigtaan Puntlandna kuwa ubay ka mid yihiin ardayda ubay ka mid tahay reer Puntlandna waxay ka mid yihiin kuwa ubay ka mid yihiin oo dhigno kuwa Gaarisa ka yimaadaan oo dhignaa kuwa Nairobi ka yimaadaan oo kuwa Mareykanka ka yimaadaan oo dhignaa waxaan doonaynaa Afrika oo dhan inay halkan isku timaado wax yar oo kooban oo reer leeyahay hagu qaadan inay tahay Camuudi kolka sheekada Camuud issue yaan laga dhigin issue ama qofku ahaado ama ha ahaado muxuu ahaa xil weyn ha hayo ama se shacab ha ahaade ma jeclin in sheekada Camuud issue laga dhigo lagu yooyootamo midba meeshuu doono oo la maro laakiin waxaan idin sheegaynaa ardayda jaamacadda Camuud waxay la mid tahay dadka imika masaajid baan ka soo baxnay dadkii ku tukanaya meeshaasi cid hayaan ma garanayno aamin tuban maqlaynay jaamacadda Camuudna aamin tuban maqlaay cid ay kala yihiin iyo cid ay gobolka ka yimaadeen iyo saliyada ka yimaadeen annaga nooma xisaabtana kolka waxaan ku talinayaa umuraha hoos loo dhigo oo caruuraha yaan isnabcaysiinin sidaas aan leeyahay